su'aasha ugu horreysay ku weydiinaya waxa weeye imise kiis baa ilaa imika la soo xaqiijiyay xanuunkan COVID-19 ama coronavirus ilaa hadda inta waqtigan joogno runtii 6 kiis hore unbaa la soo xaqiijiyay laakiin mudane dad fara badan baa qaba in tirada dadka uu hayo xanuunkan coronavirus ay aad uga badan tahay inta imika la helay ama la tuhunsan yahay markii Soomaaliland timaado asuragal maradan aynaan sameeyeen baaritaan joogto ah gudidii tan ka horeysay ee xoogga lahayd ee dawladda Soomaaliland ay samayso ee adigu aad madaxda ka ahay waxay ahayd tii abaarihii dhowr sanadood ka hor guud ahaan bagayga ka dhacay abaarahaas gurmadkoodii waxaad dadka ugu baaqdeen in lacag fara badan la soo guro oo kaalmo oo dadka lagu taageerayay dadka qaarkoodna waxay qabaan in hawshii la qabtay waqtiga iyo lacagihii la guray ay lacago aad u badnaayeen dooda saas macquul ma kula tahay tuundi mar walba hawl kasto la qabto ma tuwayso laba qof oo iskuursaday oo reer dhisaba ya Soomaaliya tuunka deewida iska wax kale ku weyn shaqo kale la qabtay gobolka awdal baad ka soo jeedaa galbeedka cabashooyin badan baa ka jira mararka qaar kood gacan ka hadal bay gaadhaa ragga qaar baa jabhada ku dhawaaqay meel ay la gaadheen ba cabashooyinka galbeedku doob ma kula yihiin bariga markaynu eegno isagu ka sii daran yahay galbeedka Soomaa iyagu qodod taam darasiin dad fara badan dhinaca kale waxay isweydiinayaan muddo dheer baad maxays ahayd maxays markay leeyihiin waa madaxweyne ku xigeen ma laga yaabaa inaad caruuska noqoto adigu maadaama imka loolankii xagga xisbiga uu ka socdo cidii gudoomiyaha noqon lahayd ma kugu jirtaa taasi dabcan waxa way ugu jirtaa sababtoo ah ciidiga xaq badanna ma jirto oo xareera asaasanahay laakiin dadka ilaa imka la maqlo ama dhawaaqa badan sameeya ama dadku hadal hayaan hore ugu ma jirin maanta ka horta Soomaa wax 5 sano ka xigta musharax u hay waxa noqonaysaa nin dagaalka ka socda baashi wajaala ka socda in qoriga ka sii furto rasaasta ku sii dhamayso adoo gibir sii maray wadeen maga maxamed la gaari deena aagi ka socday